dugsiga hoose dhexe sare Jamaal Cabdinaasir ee magaalada Burco ayaa habeenkii xalay hayd ardayda foomfoorka ee sanadkani baxaysa u qabtay munaasabad lagu sabootinayo dufcaddii 12aad ee ka baxda dugsiga Jamaal Cabdinaasir ee magaalada Burco. ardaydan oo isu diyaarinaysay imtixaanaadka shahaadiga ee qaranka isla markaana ay maalmaha kooban inaga xigaan xafladan oo ka qabsoontay hotel haas ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay munaasabadaasi maayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Baaryare mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyo marti sharaf kale. ugu horeynba waxa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Jamaal Cabdinaasir Cali Ducaale Aadan macallimiin iyo arday ku hadlaysay afka ardayda dugsigaasi kuwaas oo alla uga bariyay inuu u fududeeyo imtixaanaadka shahaadiga iyagoona u mahad celiyay jaamacadda Alfa University ee magaalada Burco oo ardayda u sameeyay kaabis waxbarasho isla markaana qayb lahaad ka qaatay siday halkaasi u soo gaari lahaayeen ardayda dugsiga Jamaal Cabdinaasir ee magaalada Burco. waxayna ku bogaadiyeen sida wanaagsan uu garab taagan yahay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiqani Ibrahim Xasan sidoo kalena mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaas oo ay ka mid ahaayeen maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo mas'uuliyiinta ka socday wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer ayaa iyana geestooda ku bogaadiyay ardayda Jamaal Cabdinaasir isla markaana alla uga bariyay inuu u fududeeyo imtixaanaadka shahaadiga isla markaana ay noqdaan ardayda kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadka shahaadiga. waxaana ka mid ah hadaladoodii kuwa maxaa soo gurtaa ee wax anfaca ee dalkooda anfaca ee duniyada anfaca ilaahay idinka yeelo. anigu waxaan u taaganahay inaan soo saarno arday iyo ardayad qayuuriina geesiyiina ku filan noloshooda waddankooda horumariya diintooda iyo dalkoodaba ilaaliya inaan soo raarsaano oo ka tagno oo wax anfaca baanu u taaganahay. kuwa foomfoorka baxayowna liibaana kuwa soo socdowna liibaana kuwii baxayowna ee fadhiyowna iyo kuwa aan joogiyowna liibaana dhammaan ardaydeedii. waxaan aad ugu mahadnaqayaa jaamacadda Alfa. ilaahay jaamacadda Alfa waxa la yidhi hadiis waa wuxuu ahaa dadka waxa ugu khayr badan ka ugu nafci badan dadka waxa u khayr badan qofka dadka kale ugu nafci badan baa u khayr badan. waxa loogu waxtar badnaa oo aanu arday iyo macallin iyo waalid uga taaganahay mahadnaq dheeraada iyo abaalgud dheeraada inaanu iyagoo kulli waxba inooga baahnaa inaanu siino jaamacadda Alfa. ardayda dugsiga sare Jamaal Cabdinaasir ee foomfoorka ee caawa halkan xafladoodii qalin bedelashada malaha qalin jabinta waa laga wanaagsan qalin bedelashada u bedelanaysa heerka ka gudbaysa maartay waxbarashadii secondary ee u gudbaysa jaamacadda ayaan halkan ka hambalyeeynaa. qodobka koowaad waxaan leeyahay ardaydeena maanta halkan fadhida ee ka qalin jabinaysa dugsiga Jamaal Cabdinaasir ee foomfoor runtii waxa ku soo beeganteen xilli taariikhi ah ayaa ku soo beeganteen dugsigan Jamaal Cabdinaasir xalay toole markii stiikarkan la soo diray baan arkay in dufcaddii 12aad ay ka baxayso. horta taariikh intaas ugu filan ma jiro Burco iyo gobolka Togdheer toona dugsi intaas oo kale ay ka bixeen ma jiro. marka taariikhda Jamaal Cabdinaasir waxaan filayaa inay intaas inaga filan tahay. ardayda mid baan oranayaa waxbarasho adin muddo soo wadeen baad afmeeraysaan horta ilaahay ha idin fududeeyay inta idinku hadhay. waxaan idinku dardaarmay war maanta idin biqi mayno oo imtixaan baa galaysaani ilaahayna wuu idin dib yareynaya anagoo ducada idin soo raacinayna idin biqi mayno oran mayno hadaa baastaan kelmadda oran mayno waa baasi doontaan insha Allah taala. waxbarashadaada intaad nooshahay inaad sii wado oo maalinba maalinta ka dambaysa ay ku sii macaanaato ayaan adeer doonaynaa waxbarashada sii wada. halkan waxaan u joognaa inaan ka dhabayno ama aanu gabagabayno himilo dheer rajo dheer hiigsi dheer oo aan in badan soo wadnay isla marhaantaana xaqiijinteeda ay naga xigto muddo yar oo kooban oo aan dhahay 4 cisho ama waxaan 10 cisho ahayn. intaa yar waxaan kula dardaarmayaa inaad waxa weeyaan guntiga u xirataan. marka labaad waxa maanta iskale maamulkeena marka saddexaad waxaan aad u salaamayaa
gudoomiyaha jaamacadda alfa oo sidoo kale inoo qaabilina kulankan aynu isugu nimaadno qiimaha badan leh sidaa idinka muuqato inaad u sii wadataan waananu idiin ducaynaynaa in ilaahay idin fududeeyo imtixaanka hadda aad doonaysaan inaad gashaan waxaa weeye waa imtixaan adduunyo laakiin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka sidaa iskuulka weyn lagu yaqaano ee jamaal cabdinaasir inaad kaalmo fiican aad geli doontaan waan una hambalyeenayaa heerkaa fiican ee maanta ay soo gaadheen ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare waxaanu aad ugu faraxsannahay ka wasaarad waxbarasho ahaan maalmahan oo kale ama habeenadan oo kale ee farxadda ah in lala qaybsado ardada waxaanu idin leenahay hambalyo sagootin wanaagsan baanu idin siinaynaa waxaanu idinka rajaynaynaa inuu magaca معهد جمال عبد الناصر إن شاء الله تعالى ونقذكر إن شاء الله بإذن الله تعالى ونقطان من الأوائل الفائزين. الله سبحانه وتعالى امتحان كهذه كجوليو شرفتي دقمة يتيجوا بالكتوغدر باحن بارسنتهين سمعة ما أنت هتسوه يسر ومد جودهان ونوسو وذهويتي وأنا كنا الله نكون فرحانو المسؤولين تخير كيجا الدقموين كيجوا الله ما شرها وهيا أنا كلا ترتبنا gabagabadiina ardayda dugsiga Jamaal Cabdinaasir ayaa maamulka iyo macallimiinta ku maamustay abaalmarino iyo shahaadooyin ay ugu abaalgudayeen sidoo kalena macallimiinta ayaa geestooda abaalmarino guddoonsiiyay ardaydii qaybta lixaad ka qaadatay qabanqaabada munaasabadaasi ayaa la ciga Ducaale Bukhari telefishinka Sahan Burco.